maxaa ugu muhiimsan ee qofka dhalinyarada ah ee shaqo raba inuu helo looga baahan yahay ama maxay tahay inuu diyaarsado markuu waxa diyaarsadana maxaa ku xiga bal asaas oo kale hadda inoogu sii wado marka ardayda inay had iyo jeer quality-ga waxbarashada aad iyo aad inta jaamacadda ku jiraan ay aad uga shaqeeyaan oo improve gareeyaan taas waa number 1 talabaad waxa loo baahan yahay waa skillska waxa laga yaabaa inaan jaamacadda ku baranin skillska dibadda aad u doonanaysa computer literacy for example oo kale inaad computerka si fiican u barataan waa muhiim weeyaan waxa jira skills kale oo fara badan oo kale looga baahan yahay shaqada waxa ka mid ah presentation skills inaad dadka hortooda intaad soo istaagto aad jeedin karto sharxi karto ka iibin karto idea-da dadka aad ka iibin karto waxa ka mid ah public speaking oo kale taalifkeedu fiican yahay waxa ka mid ah communication skills qofku inuu ku fiican yahay luqadda ingiriiska uu ku fiican yahay maadaama wixii luqadii lagu shaqeynaya tahay inuu qoraalkiina ku wanaagsan yahay hadalkiina ku wanaagsan yahay oo muxuu ahaa uu soo jeedin karo hadal uu soo jeedin karo waa muhiim marka labadaasi waa labada asaas